madaxda Soomaaliya looga timid oo hormuudku yahay wasiir Cabdullaahi Goodax Barre iyo wafdiga la socdo sida gudoomiyaha jaamacadda masabkiina iyo karaamadiina dib salaamaya intaa waxaa loo dheer mudane wasiir waxaa sharaf ku ah community Soomaaliyeed ee degan Sweden khaasatan maalmo in aad juhdi ku bixisay inaad waqtigii shaqadaada u timid aad wax ka siiso waana kaaga mahadcelinaynaa tan xigto mudane wasiir waxaan filayaa bulshadana xoogaa yar aan u ifiyo oo dhankaaga ah Cabdullaahi Goodax Barre wuxuu wasiir ka ahaa wasaaradda arrimaha gudaha sanadkii 2014 halkaasna waxaan ka ahaa shaqaalihii wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka waxaan ahaa qaybtii waaxda samafalka wuxuu aad u xasuusan karayaa 2014 bisha 12 markii isku dayga dil ilaahay naga badbaadiyo lagu qabsaday Beledowle inta u dhaxaysay bari weyne wuxuu ahaa wasiirka kaliya xiriirka lagu soo sameeyay kadib markii agaasimihiisa Yaxye uu xiriir soo sameeyay nolol geeri ninkii ugu horreeyay soo wacay isagu ahaa intaa waxaa dheer waxaan rabaa in yaro bigrif inaan ka hadlo wasiir Goodax wasiir waxa weeye juhdi u soo maray shaqadii uu qabtay sida wasaaraddeena arrimaha gudaha iyadoo ay dansan tahay shaqo wanaagsan ayuu ka qabtay halka maanta maraysana waxaa la dhihi karaa ragga soo gaarsiiyo ka mid yahay tan labaad waxaan rabaa inaan idhaahdo maalintii aan media ka dhageystay wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare in laga dhigay wasiir Goodax runtii arrintaasi aad baa diilo ugu galay diiladaasna waxaa jawaab lagaga dhigay in iskuuladii Soomaaliya uu mideeyey siyaasadda Soomaaliya saakasoo ku mixirno waxaan la soconay wasiirkii inuu imaanayay inuu halkan Sweden iyo Soomaaliya ay ka wada hadlaan sidii jaamacadaha Soomaaliya loo horumarin lahaa isagii uu guddiga ay la socdo uu ka mid yahay gudoomiyihii jaamacadda Soomaaliya intaasaan kusoo koobayaa waxaana leenahay wasiir Soomaaliyeed oo la heli kara inuusan ahayn ayaan rabaa bulshadeena reer Sweden inaan idin baro juhdi badanna soo maray haddana u diyaara hadday tahay aqoon hadday tahay capacity ama building maaragtay shaqadaasi waxaan leenahay wasiirka ha guuleysto dowladda Soomaaliya ha guuleysto annaguna ha noqon kii dalkeena ilaahay dib loogu celiya annagoo nabad assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu